السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داوديال meel kasta dunida nagala socotaan waa habeenimo khamiisa bisha December waa 8 sanada 2021 qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ku laabtay magaalada Addis Ababa iyo sababta ayaan idin haynaa madaxweynayaasha wadamada Soomaaliya, Kenya iyo Uganda waa farmaajo Kenyatta iyo Museveni oo qorshe culus ku taageeray Abiy Ahmed madaxweynaha Somaliland oo ku dhawaaqay amarro culus oo ku aadan dadka ka imanaya Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliyeed ee Puntland oo dagaal qarka u saaran kadib markii la sheegay inuu jabiyay amarradii isimada madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ay barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararka ka imanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha muddada dagaalka ku jiray Abiy Ahmed uu haatan dib ugu laabanayo magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya Addis Ababa taliska ciidamada Itoobiya ayaa bilaabay inay cutubyo ka mid ah ciidankooda ku ururiyaan magaalada ugu dambaysa ee gobolka Axmarada oo wali gacanta ugu jirta jabhadda Tigrayga kadib markii ay horumarro ka gaadheen dagaaladii ay la galeen jabhadda TPLF-ta warbaahinta Itoobiya ayaa sheegaysa in ciidamada ay u ruqansadeen dhanka waqooyiga ee magaalada Waldiya waxaana arrintaasi ay timid kadib markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu 2 maalmood ka hor sheegay in ciidamadiisa ay la wareegeen magaalooyinka istiraatiijiga ah sida magaalooyinka Deze iyo waliba Kombolja dhanka kale taliyaha militariga Itoobiya ee gobolka Shawa Nagosi Talahun ayaa sheegay in ciidamadiisu ay horumar ballaaran ka sameynayaan dagaaladii ay barihii u dambeeyay la galeen kooxda TPLF-ta isla markaana si tartiib ah ay ugu soo laabanayaan dadka deegaanka meelaha ay ka qabsadeen kooxda TPLF-ta dagaalada ayaa wali ka socda qaybo ka mid ah Itoobiya inkastoo ay jiraan digniino ku aadan xaaladda bini'aadanimo oo ka sii daraya colaadda ka jirta Itoobiya ayaa qaraxday bishii November sanadkii 2020 kadib markii jabhadda Tigraygu ay weerareen xeriyo ciidamada federaalka Itoobiya ay ku lahaayeen magaalada Makale ee caasimadda gobolka Tigrayga magaalada caasimadda u ah dalka Itoobiya Addis Ababa oo mar qarka u fuushay dagaal ayaa haatan u muuqata mid dareemaysa nafis taasi oo keentay in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu dib ugu laabto magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa isla markaana uu halkaasi ka sii wado shaqooyinkiisii caadiga ahaa iyo xafiiskii uga talinayay dalka Itoobiya ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo saacado ka hor gaadhay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ayaa halkaasi ka sheegay in dagaalkii lagula jiray kooxda TPLF-tu uu haatan sii dhamaanayo isla markaana dadka Itoobiyaanka ah ay dareemayaan hadda nabad iyo xasilooni dhanka kale ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa soo bandhigay qorshe culus oo la filayo inay ku taageeri doonaan madaxda geeska Afrika ee Soomaaliya iyo Kenya iyo waliba Uganda ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali oo maalmahan ku maqnaa jiidaha hore ee dagaalka isla markaana toos u hogaaminayay ciidamada dalkaasi oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Addis Ababa ayaa nasiino kooban oo kadib oo ku qaatay magaalada caasimadda waxa uu qoraal soo galiyay bartiisa Facebook uu ku leeyahay isagoo gantaal wareed ku tuuray dowladaha reer galbeedka oo diidanaa dagaalka lagula jiray Tigrayga ma una muujin sida uu uga xumaaday dhabar toogashada lagu sameeyay muddooyinkii dambe balse waxa uu soo jeediyay aqliyadda bulshada qaaradda Afrika inay baraarugaan isla markaana ay sameeyaan kacdoonka Abiy Ahmed oo galabta bilaabay ayaa ah mid ku suntan hurdo ka toosin isagoo ku hadaaqay war ay ku dhiiran waayeen madax xilalka ku fadhiyay sanado badan oo Afrikaan ah Abiy Ahmed ayaa qoraal uu soo galiyay mareegtiisa Facebook ku yiri anigoo ku biiraya madaxda qaaradda Afrika oo soo jeedinaya inay helaan xaq ka maqan Afrika waxa ku nool 1.3 bilyan oo qofood qaaradda waa inay heshaa kursi joogto ah oo ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayuu si cad u dalbaday Abiy Ahmed dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha, Faransiiska iyo Ruushka oo kaliya ayaa hadda leh 5 kursi ee joogtada ah ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa lama oga falcelinta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka soo bixin doonaan hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka soo yeedhay ee u muuqday mid kacdoon qaaradda Afrika lagu gelinayo si ay kursigaasi xuban uga hesho
warar ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo, Museveniga Uganda iyo waliba madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ay taageersan yihiin qorshaha Abiy Ahmed ee kursigaasi qaaradda Afrika loogu raadinayo, isla markaana ay doonayaan inay dhinac istaagaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo isagu ku dhiiraday inuu ku dhawaaqo in kursigaasi ay hesho qaaradda Madowga ee Afrika. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa u muuqda mid ay ciil ku dileen wadamada reer galbeedka oo sanadkan isku bahaystay, isla markaana taageeray jabhadaha ka soo horjeeda ee TPLF-ta iyo Oromada oo doonayay inay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xilka ka tuuraan, isla markaana uu arkay madaxdii Afrika oo gacan ku gabad ah iyo wadamada reer galbeedka oo Afrika ugu booteynaya inay yihiin iyagu kuwa joogtada ah ee mar walba halkaasi ku sugan waa qaramada midoobay, waa kuwa iyagu waxay doonaan soo saara, isla markaana aanay jirin cid ka daba hadli karaysa. haatan aanu weecanno dhinaca Somaliland. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xeer uu soo saaray ku mamnuucay in laga qayb qaato siyaasadda dalka Soomaaliya. qoraal lagu baahiyay bogga madaxtooyada Somaliland ay ku leedahay Facebook ayaa lagu shaaciyay dhowr qodob oo madaxweynaha Somaliland uu saxiixay. qodobada uu madaxweynuhu saxiixay waxaa ka mid ah: 1. qof kasta oo u dhashay Jamhuuriyadda Somaliland ha noqdo mas'uul dowladeed, shacab, urur, axsaab, aqoon-yahan, madax dhaqameed, suugaanyahan iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland waxaa lagu qaadi doonaa dambi khiyaano qaran ah si waafaqsan qodobada 1 iyo 2 ee go'aanka labada gole. waa sida qoraalka Muuse Biixi lagu yiri. 2. xukuumadda Somaliland oo kaliya ayaa ka qayb gali karta shirarka ay ku kulmayaan Somaliland iyo Soomaaliya ee loo arko inay dani ugu jirto ee aanay ka hor imanaynin jiritaanka qarannimada iyo dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland si waafaqsan go'aanka labada gole. 3. qof kasta oo ka qayb qaata arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Somaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horkeenin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. 4. dhammaan hay'adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah inay fuliyaan go'aanka labada gole, isla markaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dambigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qarannimada iyo madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland. waa qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. amarka cusub ee ka soo baxay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo beegmaya xilli siyaasiyiin ka soo jeeda Somaliland ay xilal sare iyo kuwa heerar kala duwan ah ka hayaan dowladda Soomaaliya kana qayb galaan shirar ay ku matalayaan Somaliland. waa sida iyagu sheegtaan. dhinaca kale, daawadayaal, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa la sheegay inuu dagaal ka qarxa magaalada Boosaaso uu qarka u saaran yahay. magaalada Boosaaso oo ah isha dhaqaalaha Puntland ayaa foolanaysa dagaal iyadoo ay isku hor fadhiyaan ciidanka maamulka Puntland iyo kuwa taabacsan taliyaha xilka laga qaaday Maxamuud Cismaan Diyaano oo ah nin awood badan ku leh magaalada Boosaaso. xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii shalay isimada Puntland iyo oday dhaqameedyada oo ku jiro Boqor Burhaan ay soo saareen qoraal ay dani uga dalbadeen inuu taliyaha BSF-ta ee shaqada laga eriyay u daayo hantida hay'adda sida guryaha, gaadiidka dagaalka iyo weliba hubka. qodobkan ayaa durba waxaa diiday madaxweyne Dani oo ku tilmaamay mid dhaawacaya dowladnimada Puntland, sidoo kalena ay dhiiri gelinayso musuqmaasuq lagu sameeyo hantida dadweynaha. isimada waxaa kale oo ay sheegeen in dowladda laga rabo inay bixiso mushaarka ciidanka ilaalinayay taliyaha xilka laga qaaday, sidoo kalena ay bixiso mushaar la sheegay inuu gaadhayo 13 bilood oo ka maqnaa askarta BSF-ta si ay u dhacdo xil wareejinta. balse madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa gaashaanka u daruuray dhammaanba dalabyada odayaasha, isagoo xusay in tallaabo militari uu qaadi doono maadaama uu soo xidhmay albaabkii wadahadalka iyo waanwaanta. ciidamo badan oo Puntland taabacsan oo ka soo baxay Garowe iyo buuraha Galgala ayaa la geeyay magaalada Boosaaso, waxaana dhowaan ku soo biiray taliye ku-xigeenkii BSF-ta oo Dani xil uu ballan qaaday. Boosaaso waxay qarka u saaran tahay inuu ka dhaco dagaal. akhirta sharafta leh wada nagala socoto, intaas waxaan ku soo koobaynaa guud ahaanba wararkii nooga imanayay gobolka Geeska Afrika. intaan ku kulmayna warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.